iyadoo wali ay socdaan baaritaanada la xiriira cidii ku lug lahayd fududeynta weerarka argagixisadu ay maalinnimadii Isniinta ku qaadeen xarun ku taalay koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa waxa maanta saraakiisha ciidamada amniga qaranka ee ku sugan Gaalkacyo ay ku guuleysteen inay helaan goobtii lagu soo abaabulay qaraxaasi taa oo ahayd guri ku yaalay xaafadda Horumar ee magaalada Gaalkacyo gurigan oo yaaleen cadeymo muujinaya inuu ahaa goobtii laga soo abaabulay weerarkii kooxda naflacaariga ee Al-Shabaab ay ku qaadeen xaruntii Allah u naxariistay Sheekh Cabduwali Sheekh Cali Cilmiyare ayaa waxa saaka tagay saraakiil ka socotay ciidamada booliiska nabad sugidda iyo xoogga dalka gaashaan la sare Cabdi Jaamac Abdullah Habeeb taliye ku xigeenka ciidanka booliiska Galmudug oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan ilaa hadda baaritaanada ay wadaan laamaha sirdoonka ee ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Gaalkacyo waxaan joognaa meeshii laga abaabulay qaraxa lagu sameeyay gurigii shirku ka dhacay 26kii gurigaas waxa yaala marag muujin waxa yaala alaabtii qaraxa lagu sameeyay waxa yaala raashinkii waxa yaala maxaa la dhahaa calaamadihii ay xirteen waxa yaala mobeeladii waxa yaala maxay baabuurtii meeshii lagu dhaqay calaamadihii kulley dabagal baa lagu samayn doonaa insha Allah wixii meelaha ay arinta ka jira dabagal baa ku samayn doonaa hadii Allah idmo waana qasab hadii wax dhacaan muxuu ahaay in hadda meesha wax ka dhacaan la baaro la tago meeshii intaas aan ku aragnay sidoo kale waxa saraakiisha ciidamada amniga qaranku ay sheegeen inay jiraan dad la tuusan yahay in falkaasi ay ku lug lahaayeen qaarkoodna ay gacanta ku soo dhigeen sidoo kalena wali ay socdaan baaritaanadaasi